Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal kusoo dhawaada channelka AK Vlogs. Maanta waxaan idin haynaa dhulkii iyo guryihii aad nooga barateen inaan mararka qaar halkan idin soo gelino guryo iyo dhul iiba inta waan idin haynaa. Marka kusoo dhawaada channelka haddaad ku cusubtihiin marka hore subscribe saara, muuqaalkana like saara. Aad iyo aad waa mahadsantihiin. Daawadayaal halkani waa xaafadda Badda Cas, waxaana u dhowdahay hodheelka Crown ama waxay ku beegan tahay dhabarkiisa. Kolay waa hodheel caan ah oo dadka badankooda ay wada garanayaan. Halkan ayaa waxa ku yaala guryo la iibinayo oo ay shirkadi dhistay. Waxaan doonayaa inaan guryaha idin dhex geeyo, aan muuqaal qurux badan idinka duubo, isla markaana aan dusha iyo gudaha baan si fiican idinka tuso. Halkan ayaa ah meel aad loo degay oo magaalada dhexdeeda ah, isla markaana laga dhisay guryo aad u qurux badan kuwaas oo ay shirkadi dhistay. Laakiin guud ahaan meeshan ayaa xaafad la wada degan yahay oo cid waliba ay degan tahay. Marka waxaan ka wadaa cid waliba ay degan tahay calaashan waa meel dee la degay oo ka mid ah xaafadaha magaalada, ma aha meel cusub. Marka dhul bannaan oo area-dan ku yaalay ayaa waxaa laga dhisay guryo loogu talagalay in la sii iibiyo oo ay shirkadi dhistay, isla markaana qaab qurux badan loo dhisay. Bal guryahan ayaa mid ka mid ah gudaha u gelayaa, isla markaana aan gudihiisa muuqaal ka soo duubaya. Gurigu qaabkan ayuu eegyahay. Kolay guryo waa isku wada cabir, waana isku wada nooc baan filayaa. Marka dusha sare haddaan ka tuso gate buu leeyahay. Albaab guriga qolkaas ugu soo horeeya loogu talagalay qolka service-ka. Gudaha marka la soo galo dhinacaan waxa ka soo jeeda kitchadii. Marka waa 5 qol ama waa 4 qol iyo fadhigii. Marka wuxuu noqonayaa 4+1. Haddaan qolaalka kale aan mid idin dhex geeyana qaabkan ayay qolaalka isu eegyihiin. Qolkani waa qolka fadhiga. Qolkana waa qol yar hurda. Hurdadii weyneed ayaa intusiya ama qolka loogu talagalay hurdada waa qolkan. waa maxay daaqado aad u weyn bilay oo nafis ah oo aad qurux badan. Sidoo kale suuliyaashiisa ayaa iyaguna ah suuliyaal aad qurux badan oo qaab aad fiican loo dhisan gareeyay. Mid ka mid ah waa suuliyaasha guriga ku yaala mid ka mid ah. Waxaan filayaa gurigu 2 suuli ayuu leeyahay, mid hurda iyo mid public ah, kan ku hurdada. Kolay leerka ayaa baktisan, xilliguna waa xilli iskira habeena. Runta albaabadiisu waa loox aad qurux badan, waliba waa loox quality-giisu aad fiican yahay oo aan aad u helay qaabka loo dhisan gareeyay. Halkani waa qol kale albaab dambe oo laga baxayu leeyahay qolkani oo dhinaca dambe marka doonaysa dhinaca dambe wada bixi karaysa. Luuq yar ayaa ku wareegsan guriga oo dhan. Suuligani waa mid ka mid ah suuliyaasha uu gurigani leeyahay. Xagana waa daaradii. Waxay leedahay daaqad weyn oo nafis ah ayay leedahay. Haddaad doonaysa iska furi karaysid, isla markaana aad ka leersan karaysid. Halkani waa daaradii. Waxay leedahay meel yar oo loogu talagalay in wax lagu sharaxdo ama alaabaha la saarto kale. Kolay iska decoration. Waliba meelahan oo kale waxa isticmaala dadka sideedo kala duuba ayaa jecel in gurigiisa dhexdiisa u lahaado meel yar background iska diyaarsan, isla markaana aad alaabo ku sharaxan karaysid, waxaad u baahan tahay aad ku xiran karaysid. Qolkani waa qol yar oo dibadda ah, waa qolka service-ka oo markii hore soo dhaafaynay. Guud ahaan guriga wuxuu ka kooban yahay 4 qol oo hurda iyo qol fadhiya
iyo qolka yar ee dibadda. runtii waa guri weyn oo nafisa, laakiin guud ahaan cabirkiisu waa waxa weeye waa nus baan filayaa, waa nus weeye. guryo oo dhan waa isku mid, xagga guryo badan baa kasii jeeda, waa shirkadu waa dhistay. guryaha qaar ka mid ah waa lagu jiraa, waa la degay, qaarna weli way bannaan yihiin, waa la iibinayaa. guryahan qiimahooda haddaan idin sheego, waxaa lagu iibinayaa $75,000. kole saarad iyo discounkoodiina way wataan, laakiin qiimaha naloo sheegay waa $75,000. waxay u baahan nambarka halkaa in ku reebo ayaad nagala soo xiriireysaan. guryo dhinacan waxay uga dhow yihiin wadada 100 jire oo halkan agteena maraysa. dhinacan wax naga xiga balliga dhaanka oo laga dhigay meel lagu nasto oo loogu talagalay mustaqbalka in noqoto meel qurux badan marka biyaha laga yimaado laga cabayo, sidoo kale ay noqoto meel lagu nasto oo aad u qurux badan. guriga halkan ka muuqda ayaa isagana la iibinayaa. guriga cusub ee imika la dhisay maaha, kuwii hore guriga cusub ahaa, laakiin kani waa guri yara duuga. inkastoo yahay guri dee iska wanaagsan oo aan haba yaraatee wax cilada lahayn ama wax dildilaaca aan lahayn. gudaha ayaa idin gelinaya isagana oo muuqaalkiisa si fiican ayaa uga boganeysaan. qolkani waa qolka fadhiga, waa qolka ugu soo horeeya ee fadhiga. leerka ayaa kule yara baktisan oo meesha yar madow ah, ka raalli ahaada. sida daaradiisuna runtii waa daarad yara waasaca, maaha guri cidhiidhiya maaha. qolkani waa qolka hurdada. qolkana waa qol kale oo hurdaa isaguna. markaa guriga guud ahaan wuxuu ka kooban yahay 5 qol ama 4 qol iyo fadhi. sidaa ayaa ula soconaysaan. qiimihiisana waxaa la siinayaa $65,000. wixii u baahan waad nala soo xiriiri karaysaan. iminkana waxaa idin geynayaa dhul iiba oo ku yaala hoteelka Crown kasoo horjeedkiisa ama hoteelka Xamdaan ee cusub eriyada u dhow ayuu ku yaalaa. halkan ayaa la iibinayaa, waxaa la siinayaa $85,000. waa wajahada ama kasoo horjeedka hoteelka Crown, waana balood dhammaystiran oo cabirkiisu yahay 60 ama ID by 60. si kale haddaynu u sheegnana waa 18 iyo 24. halkan kale ayaa iyaduna kasoo horjeeda, waa isla hoteelka Crown eriyada u dhow. wadadana waxaa ka xiga hal balood ayaa ka xiga wadada weyn ee main roadka ee jigjiga yar marta. isna waxaa lagu iibinayaa $85,000. waana balood dhammaystiran oo ah 18 iyo 24 mitir ama ID by 60. hadba sidaa u taqaanid. dhulkaasna waa iib cid u baahan. halkan kale aynu maraynaa waa idaacadda, wadada idaacadda halkay ka gasho 150 ayaa afka ku haysaa. iyadana waa meel yar oo la iibinayo, inkastoo cabirkeedu yahay meel yar. business ayaa ka socda, leemaja ku taala. qofkii ganacsiga furanayo kale aad baa anfacaysaa, waa laamiga ayay ku jeedaa. dhinacan sarena waxay naga maraa wadadii 150 ee afka ku hayso. cabirkeeduna waa 16 iyo 7. qiimaha la siinayana waa $57,000. cidda u baahan waad nala soo xiriiri karaysaan. nambarkeeguna waa ka xagga hoose commentiga yaala ama shaashada ayaan soo dhigayaa. halkani waa suuqa bartankiisa weeyaan. waxaa ku yaala dhul cabirkiisu yahay 16 iyo 7. qiimaha lagu iibinayana waa $130,000. sababta qaaliga u tahay waxa weeye suuqa dhexdiisu aad buu qaali yahay, waanu ka qaalisan yahay goobaha kale. cidda u baahan nambarkayga ayaad igala soo xiriiraysaa WhatsApp-ka. insha Allah aniguna waxaan idinku xidhayaa
ama idinla xiriirsanaya qofka dhulka iibinaya ee mas'uulka ka ah. aad iyo aad baa mahadsantihiin. waa tan iyo muuqaal dambe xiiso leh intaan ku kulmayno. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.